dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka ee ka howlgala Soomaaliya ayaa soo bandhigay qorshaha 2019 ee looga jawaabayo xaaladaha bini'aadanimo waxaana ay deeq-bixiyaasha ay ka dalbadeen dhaqaale lagu joogtooynayo howlaha gargaarka ee dalka ee sanadkan waxaana jirta in qiyaastii 4.2 milyan oo qof oo ku nool gudaha Soomaaliya ay gargaar u baahan yihiin sida warbixinta lagu xusay ilaa 3.4 milyan oo qof oo kamid ah dadkaasi oo u dhiganta boqolkiiba 82 ayaana la sheegay in lacagta la dalbaday wax loogu qaban doono dowladda iyo hay'adaha samafalka ee Soomaaliya ayaa waxay dalbanayaan lacag ama dhaqaale gaaraya 1 bilyan oo dollarka Mareykanka waxaana warbixinta lagu xusay in markaasi roobabkii guga ee sida wanaagsan u da'ay Soomaaliya sanadkii 2018 ay ka dhalatay in 32% ay hoos u dhacdo tirada dadkii kaalmada degdeg ah u baahnaa wadanka gudihiisa lacagtan ayaa lagu maalgelin doonaa 4 qaybood oo kala ah in dadka gaajaysan la badbaadiyo nafaqa la'aanta difaaca iyo waliba in hoy la siiyo iyo in kaalmo la siiyo dadka ugu nugul haddaba waxaa qadka si toos ah ugu jira wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee Soomaaliya Xamsa Saciid Xamsa magaalada Muqdisho wasiirad waad mahadsantahay marka ugu horeysa dadkan xagee kala joogaan aad sheegaysaan in dhibaatadu ay haysto malaayiinka wadanka dhan ayay joogaan markaan ka bilaabno Somaliland Puntland Galmudug Hirshabeelle South West Koonfur Galbeed maxaa la yiraahdaa iyo meelo kale laakiin wasiir dalka dhan ayay kala joogaan baad leedahay laakiin dalka dhan gacanta kuma haystaan meelo xitaa waxa jira dad fara badan ay ku dhibaataysan yihiin oo goobaha al-shabaab hoos yimaada ah marka sidee tiradan ku hesheen tiradan kulay anaga oo kaashanayna hay'adaha samafalka iyo dadka meelaha noo joogo marka saad ku sheegtay meelahaas ma la gaarsiin karno mucaawanooyinka waa gaarsiin karnaa anaga sideed ku gaarsiinaysiin dad baa diyaar u yahay inay meelahaas gaarsiiyaan waan gartay laakiin dad fara badan waxa isweydiinayaan lacag fara badan mar walba waa la weydiistaa oo waxay leeyihiin waxaan waa dawarsi marka si loo dhigo dadku saasay aaminsan yihiin marka inaad lacag uun dalbataan sanad walba dadkiina xaaladoodu ay meeshii uun tahay oo jugjug meeshaada joog ay noqoto so weji kale oo inaad keentaan ma aha oo dadku wax loogu qabanayo horta lacagtan aan dalbanay wax maxaa la yiraahdaa an emergency oo loogu talagalay maxaa la yiraahdaa humanitarian planka sanadkan lacagtaana waxaan kala tashanay hay'adaha iyo maxaa la yiraahdaa dadka meelaha joogo baahida kulay hadda waxaad u maleysaa sanadka hore waxaan dalbanay 1.5 billion sanadkan hoos buu u dhacay wuxuu gaaray 1.08 taas waxay ku tusinaysaa meeshaas in wax weyn laga qabtay marka gargaarkana waa gargaar joogto ah wadankana waa wadan markas emergency ku nool maxaa la yiraahdaa abaarahan soo daba noqonaya markas iyo dagaalada maartay oo aan marna joogsaneyn waa gartay wasiir dhinaciina dowladda Soomaaliya marka laga soo tago lacagtan aad weydiisanaysaan wadamada deeqda bixiya meeqaad adinku bixinaysaan dowlad ahaan anaga dowlad ahaan kulay qarash baan oo yaaloon emergency aan ugu talagalnay maxaa la yiraahdaa oo quick response laakiin waxaan wax hadda gaari ah ma laakiin waxaan sugeynaa anaga hadda diyaar baan u nahay inaan hawsha bilaawno laakiin waxaan ku weydiiyay lacagta ugu talagashan waa meeqa cadadkeeda haddaad noo sheegto daawadayaasha la wadaag kuma sheegi kar kaas waxaan noo sir ah marka inaad laakiin dadka marka lacag aan ilaa dhowr bilood aan ku gaari karno waa haysanaa laakiin ma sheegi kartid cadadkeeda inta uu yahay cadadkeeda kuma sheegi kar laakiin lacag oo anaga ilaa muddo aan ku socon karno waa haysanaa maxay tahay sababta aad u sheegi karin wasiir adoo raali ah wax anaga sirno ah waan gartay dadka anaga dhaxay anaga iyo hay'adaha samafalka waa dadkan marka inay mar walba ay gargaar iyo kaalmo bini'aadanimo ku tiirsanaadaan oo ay ka baxaan miyaad qorshihiinu yahay oo waxbarasho ama wax kale loo sameeyo oo aan ahayn in la quudiyo maalin walba waxay cunayaan la siiyo maya anaga horta kulay dowladda waxyaabaasba saddex shay horta waxaan kuu sheegayaa in dowladda xoog saartay in maxaa la yiraahdaa maalgelinta mashruuc horumarinta waxaasna way socdaan meel fiican ayay noo marayaan roob fiican sanadka horena waa helnay iyo hay'adaha si joogto ah maxaa la yiraahdaa u gaarsiiyaan
deeqda bishii bil kastoo ay waxay quudin jireen ilaa 3 milyan sanadkan waxaan rabnaa inaan sii kordhino marka dagaaladan oo isdaba joog aan dhamaanayna oo markastoo abuura in dadkii meelood ay joogaan ay soo barakacaan beerley meelaas la qorshahaasna waa ku jirnaa inaan relocation ku sameeyno meelo kuna say maxalliyaha dhow dhaqaalaha wax nooga qabtaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse wasiir waqtigaaga aad baan kaaga mahad celinaynaa bal markana studio waxa ay gula sugan Mawlid Xujaale oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bini'aadanimada Mawlid wad arkaysaa wasiirka waxa uu leeyahay gargaarkii mar walba inkastoo hadda sanadkan roobabkii da'ay leeyahay hoos bay u soo dhacday tirada dadka wax laakiin xaaladda markaad qiimeyso waa sidee xaaladdu inkastoo ay sidii hore dhaanto laakiin roobabka da'ay oo loogu aaneynay inay wax ka bedeleen dhibaatadii waxaa dhanka kale jirta inay dad badan barakiciyeen oo xagga ma aragtay guud ahaan tiradii way yaraatay laakiin tiradii qaybtii oo barakacayaasha ayaa waxa ku darsantay in badan oo waxay ahayd 2 milyan iyo bar hadda 2 milyan iyo 600 kun bay kor u sii dhaaftay marka roobkaas iyagana saameyn ayay keeneen waan gartay marka dadka ugu nugul ee colaadda dhibaatadan ay gaartay waa kuwe baahida ay qabaan maxay tahay baahida dadka ugu nugul waa dadka barakacayaasha oo dunida Soomaaliya hadda ay noqotay wadanka ugu maartay ka mid noqotay wadamada ugu barakacayaasha badan 2 milyan iyo bar in ka badan waa garan kartaa tirada inta la eg tahay waxaana ugu sii nugul 1 milyan oo caruur ah oo nafaqa darro ay haysato dalka gudihiisa waxa kaloo nasiib darro ah dadkaas waxay ku faafsan yihiin gobolada dalka oo dhan ilaa 18 gobol warbixintu waxa lagu sheegay in gobol kasta ay ku jiraan dad barakacayaal oo caruur ay u badan yihiin oo nafaqa darro ay haysato dadkaas marka ayaa ugu nugul waan gartay marka qaab oo dhibaatadan mar walba soo noqonaysa qaab looga fursan karo oo ileen heedihii caalamkan waxay leeyihiin mar walba deeqdan sanad walba joogto uma bixin karno ma jirtaa qaab looga fursado oo dadkan dhibaatadan looga hortago qaabka ay ku shaqeynayaan hay'adaha caalamiga iyo dawladda Soomaaliya bay hadda iskaga kaashanayaan ayaaba ah qaab aan marnaba loo gudbi karin in la helo xal waara ah maxaa yeelay sanad walba sanadkii hore 1 bilyan baa la codsaday sanadkan haddana bilyan kala la codsanaya waxayna ku tusaysaa ma garanaysaa mar walba waan ka xumaa wasiirku inuu hadda sheegay wadankeenu mar walba emergency ku jiro marka qaabka looga hortagaya waxay tahay qaab qaldan lama abuurayo wax ma aragtay mashruucyo waara oo dadku iyagu ay gacantooda wax isugu qabsadaan laakiin qof baahan maxaa mashruuc loo sameeyaa qofkii haduu baahan yahay markii horeba oo wixii uu cuni lahaa uu sanaysan oo noloshiisa halis ku jirto dhibka jira waxa weeyaan wixii cuni lahaa qofkan baahan waxa la sameeyay system mar walba gacan kale ku tiirsan yahay wuxuu isagu u baahnaa beerihiisii hadii la maalgeliyo isaga ma aragtay loo daayo ama dhaqaalahan la soo ururinayo la siiyo dadkii si toos ah iyaga gacantooda wax ugu qabsadaan qofkii uu gaari lahaa horumar uu ma aragtay isaga cagihiisa ku istaago balse waxyaabahan dhan iska daba imanaya waxay tahay wax ma aragtay ku tiirsan hay'ado caalami ah iyo hay'ado kale oo ma aragtay Soomaaliya leeyihiin oo dalka gudahooda joogo wixii oo dhan iyaga gacanta ku hayo marka waxa u dhaxeeya darbi deeqihii caalamka iyo dadkii taas ayaa keenaysa qofku mar walba inuu ma garanaysaa ku jiro qaabka ma aragtay sanad walba qorshahan loo dejiyana waxaad moodaa inuu yahay qaab ma aragtay lagu sii wado maartay dhibaatada waxay afarta ujeedooyin reportkan hadda lagu soo saaro qorshahan lagu codsanayo lacagta qaybta ugu dambaysa waxa ku jirto in yar oo ah in dadkii ma aragtay adkeysashadooda lagu caawiyo waxay ku tusaysaa priority-gu ma aha dadka inay cagooda ku istaagaan goorma marka aad isleedahay wax badan baad ka qortay Mawlid arrimahan bini'aadanimada Soomaaliya goorma aad isleedahay xal waa loo helayaa oo Soomaalida dhibaatada way ka baxi karaan waxaa loo helayaa markii Soomaalidu iyagu loo daayo gacantooda waxooda ku qabsadaan dawladana qarshe qoran bay hadda sameysay qorshahaas waxaan isleeyahay hadii loo daayo inay ma garanaysaa xal waara lagu heli karo aad iyo aad baad mahadsan tahay Mawlid Xujaale oo noga faaloonaya arrimahaas bini'aadanimada Soomaaliya